waftigii uu hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi oo weli safarkoodii shaqo ku jooga wadanka aynu dariska nahay ee jamhuuriyadda Djibouti ayaa kormeer ku tagay oo booqday goobo cusub oo ay kamid ahaayeen meelaha cashuuraha ka cagan ee loo yaqaan Free Zone-ka kaas oo laga binaynayo galbeedka magaalada Djibouti isla markaana uu weli dhismihiisu socdo. wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee jamhuuriyadda Djibouti ayaa madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi uu sharaxay naqshada uu yeelan doono marka uu dhamaado iyo waxyaabaha uu ku soo kordhin doono wadanka Djibouti. sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu soo indheeyay dhismaha goobaha si cashuuraha ka cagan ee Free Zone-ka. geesta kale madaxweynuhu waxa uu booqday dhismaha dhaambiyood ballaadhan oo ku yaala magaalada Carto oo u dhow magaalada Djibouti. waxa uu kuurgalay qaabka loo hirgeliyay dhaamkaasi. wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee Djibouti ayaa ka hadlay mashaariicda kala duwan ee madaxweynaha Soomaaliland uu booqday. biyo xidhankan wuxuu qabanayaa 14 malyan iyo 500 kilomitir kiib 2 malyan lama isticmaalayo inta hoosta inta lama isticmaalayo waa inta saroon 12 malyan baa la isticmaali karaa. waxa loogu talagalay inay dirta karanta kolkay timaado ilaa dayrta ilaa maad garan guga ay gaadhaan oo isbedilaan kolka markii ugu horeysay waxa loogu talagalay magaalada Djibouti sidaad ogtiin waxay ku fadhidaa dhul hoose baday ka hooseysa qayb waa kii kolku daad weyn yimaado magaalada Djibouti qaybteed buu qaadi jiray daadku kolka naga xidhaa leeyay taasa loogu talagalay hordhicii ugu horeeyay. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi oo ka hadlay safarkiisa Djibouti ayaa hoosta ka xariiqay inay tahay iskaashiga labada wadan siba arrimaha kobcinta dhaqaalaha iyo nabadgelyada iyo qodobo kale oo muhiim u ah labada wadan. waxay sal ku haysaa laba dal oo walaalo jaaraho hawlihii dhaga dhaxay iskaashiga sax nabadgelyada ugu horeyso sax dhaqaalaha in loo kobciyo ugu horeyso marka inuu nabad iyo iskaashi iyo wada qabsi iyo horumar lagu bedelo ayaa la wadaa boqolka sano soo socda Afrika dhammaan waxay u guuraysaa aragtida marka inta in la xoojiyo oo daayirtiinan qoladeen hore buuq iyo dagaal iyo xan ku gownaa loo maskaxda loo safeeyo lagu bedelo iskaashi ee walaatiriin maxaanu qabanaa inagoo kala xada inagoo kala baasaboor marka khayraadkooda ay kartaa inaguna isugu dhownahay taa waa xoojinayna fisha dheer baan kala leenahay mashaariicdan aan soo maray way aragnimadan ku qaadanayna hadday tahay zoonka hadday tahay dhaamkan waxaad eegaysaa wixii bini'aadmu hore u maraya cibra laga qaata kolka way aragga dhismaha iyo horumarka la samaynayo iyo waxyaalaha la suurtageliyay way aragnimo la kororsanay marka dad walba marka aad fiirato waxbaad kororsanaysa ka ku yimaada waxba ka kororsanay de marka waxaan arkaynaa maanta boorihi waa oo deel la dhisay oo biyo laga qabtay laga ximado deel lagu dhiman jiray markaad marayso ilaa hore ku dhaafay dad ku raadina lahaa oo leeyahay inta soo malyuuna biyo la dhigay oo beera laga qoday oo xoolaha laga naaxinaya waa dhow de waa fikir soo koray yaa qoon karo waa aragnimo. Axmed Saki Daahir Xasan warbaahinta qaranka.